أحمد ياسين أحمد وكل بسنا درك دمر كان شريرنا وحرنا أي عندما بليس كصوماليا كسوق قبتين دقمة هذن أي قبل كبنادر جارهان حافظ السنكي وحين عندما وشكيين كان إنه كتير سنة هاي كوحدة قبل كده ودعي على الشباب عندما بليس كايا شيرين باريتانا يكسمين يان سلوغ هذا سبب تقدم بيس إنه نكن يصاحده درك دمر كين شرير كا أفين كعيدا كبليس كصوماليا قاسم أحمد روبلي وربهنت لها اللي أي شيء إنه عندما بليس كاي باريتان كسمين أحمد ياسين oo la soo qabtay isagoo xiran labiska dumarka waxaana tilmaamay afhayeenku in kooxda al-shabaab lagu yaqaano xeeladaha noocan oo kala ah waa markii tobnaad aan dhihi karnaa khiyaanada iyo xeeladaha faraha badan oo ciidanka booliiska professional ahaan iyo ciidanka nabad sugidduba ay xirfadda u leeyihiin weeye sidaad u jeedaan ninkaani maantay nasiib wuxuu u yeeshay in la soo qabto oo cadawga laga soo qabto saad ula socotaan baa dee ciidanku sidaasay u shaqeeyaan 24 saac mid indha shareer soo xirta mid maaragtay naagis ka soo dhiga mid gar soo deysta feega oo gar feega soo xirta mid garka iska soo xira oo awal gar lahaan jiray khiyaanooyinku way badan yihiin marka maanta waxa ciidanka booliisku ay soo qabteen ninkan wareysigiisa iyo baaristiisa iyo arrimihiisana dibaan ka soo sheegi doonaa hadda waa kan ku soo dhawaada taliyihii soo qabtay oo degmada iyo taliye ku-xigeenkii asaguna taliye ku-xigeenkii nabad sugidda intuba waa ay joogaan kulligood howlgalku wuu fara badan yahay kuwa kale oo waxaan rajaynaynaa oo sidaan oo kale ah inay jiraan kana kiiskiisa waa la baarayaa hawsha laga qabsanayaa hawluhu wixii ay ku dambeeyeen iyo saasan shacabka ula qaybsanaynaa information kasta oo nagu soo kordha aad baan u mahadsantiin marka uu soo gabagabo baaritaanka ay ku sameeyaan ciidanka bilayska Soomaaliyeed ninkan ku labisna dharka dumarka indhuhuna ay xidhnaayeen ayay saraakiisha ciidanka bilaysku balan qaadeen inay soo bandhigayaan warbixinta dhabta ah iyo wixii ka soo baxa baaritaankooda Nashaad Bashiir Ahmed SNTV Muqdisho.